Dayax-gacmeedkii Midowgii Sofiyeeti ee fashilmay ayaa dhulka dib ugu soo laabtay kadib 350 sano oo uu ku hagnaa orbit. Dayax-gacmeed ku xayirmay meeraha dhulka kadib markii uu fashilmay iskuday uu ku doonayay inuu ugu safro Venus in ka badan 50 sano ka hor ayaa ugu dambeyntii dib ugu soo laabtay dhulka. Cosmos 482 oo ah hadhaagii ugu dambeeyay ee barnaamijkii sahaminta Venus ee Sofiyeetka ayaa dib ugu soo laabtay jawiga dhulka hal eberkii Maajo 2.25 in ka badan 3 sano kadib markii loo diray hawshiisii 11 Mart 1972. Sababtoo ah Cosmos 482 waxaa loo dhisay si ay ugu adkaysato xaaladaha Venus, heerkulka kulaylka celceliska 464, roobka ashitada, iyo burburinta cadaadiska atmospheric. Saynisyahanadu waxay qiyaaseen in 495 kilogram, 1.91 rodol, dhulka laga yaabo inuu ugu yaraan qayb ahaan ka badbaado gelitaanka Mospes. Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay wakaaladda hawada sare ee dowladda Ruushka, dayax-gacmeedka ayaa u badan inuu ku dhacay badda. Taas oo noqon doonta wax lala yaabo marka la eego in 7% ee dhulka dushiisa ay daboolaan biyo. Diyaaradaha Cosmos 482 oo la diray 1972 waa ay joogsadeen jiritaankooda, waxa ay sii daayeen oo ku dhici jireen badweynta Hindiya, ayuu Roscosmos ku qoray qoraal uu soo dhigay Telegram bishii May 1 eberkeedii. Sida laga soo xigtay xisaabaadka ay sameeyeen khabiiro ka socda Tsnimash, qayb ka mid ah Roscosmos, dayax-gacmeedku wuxuu galay lakabyada cufan ee jawiga eber 9, 24 wakhtiga Moscow, eber 6, 24 Utah, oo 5 eber kiiloomitir galbeed ka xigta jasiiradda Andaman Dhexe, wuxuuna ku dhacay badweynta Hindiya ee galbeedka Jakarta. Erbixiyeenka Marco Langbroek oo ka tirsan Satrak Amleyden, oo ah xarun raadraaca dayax-gacmeedka ee Netherland, ayaa sheegay in qaar ka mid ah hubanti la'aantu ay weli taagan tahay meesha ugu dambeysa ee Cosmos 482, maadaama xisaabinta Roscosmos aysan ku salaysnayn indho-indhayn laakiin qaabaynta. Si kastaba ha ahaatee, wakaaladda hawada Yurub waxay ku qiyaastay wakhtiga gelitaanka eber 6, 1 Utah, jaamacadda farsamada ee Denmarkna waxay ku qiyaastay eber 6, 4 eber Utah. Qiyaasta Roscosmos waxay si fiican u fadhidaa bartamaha labada qiyaasood. Badweynta Hindiya, ayuu Langbroek leeyahay, waa meesha ugu badan ee dayax-gacmeedku ku soo dumay. Ma ogaan doono hubaal ilaa xog badan la soo gelinayo. Hadda, waa inaan dejinno ogaanshaha inay soo degtay, oo aan ku degin meel ay wax dhibaato ah ka keeni doonto, taasoo guul u ah bini'aadmiga, wax walba oo la tixgeliyo.